Assalaamu calaykum asxaabta ku soo dhawaada qaybtii afaraad ee sheekada sirdoonka Soomaaliya. Sheekadan waxaa qoray Farxaan Xiirane. Dhaqdhaqaaqa xureynta Falastiin PLO oo markaa xafiis ku lahaa Addis Ababa ayaa dowladda Soomaaliya aqoonsatay xafiiskaasi ayaa wuxuu noqday xarun ay dowladda Itoobiya ka hesho warbixinada xasaasiga ee quseeya ammaanka dunida Carabta oo ay Soomaaliya xubin ka tahay. Madaxda dunida Carabta marka ay safiirada Soomaaliya kala sheekaysanayaan waxyaabaha ay Soomaaliya ka maagan tahay Soomaali galbeed ayaa warbixinada wasiirada gudaha isku dhaafsadaan. Xarunta wasaaradaha gudaha ee Jaamacadda Carabta ayaa Falastiin si hagar la'aan ah ugu baasi jirtay xabashada. Jaalihii aan maanta ka amar qaadanayay ayuu wuxuu ii dhiibay khariirada dunida oo ku sharaxan af Carabi, wuxuuna igu yiri siday doonto ha noqotee xafiiska PLO ee Addis Ababa ku soo deji, ogow waa sir yaysan arkin xabashada. Waxaana ku talay buug bahda hanti wadaaga oo ku qornaa af Ingiriis. Safar 14 maalmood ah oo aan isaga talaabay 3 dal oo ay ka mid tahay jannadii basaasiinta ee Qobrus ayaan gaaray Addis Ababa anigoo sheeganaya magac dhalasho iyo darajo iyo diin dulsaar ah. 18 maalmood ayay igu qaadatay in aan si nabadgelyo ah ugu soo dejiyo khariirada oo amarka igu siiyay sareeya guud taliyahaygii in laga lalo xafiiska Falastiiniyiinta ku leeyihiin Addis Ababa oo dhaawac weyn gaarsiiyay Jamhuuriyaddii Soomaaliya. Dr. Fikri Marid oo xubin ka ahaa dhaqdhaqaaqa hanti wadaaga Itoobiya garabkiisa siyaasadeed ayaa cashi sharaf iigu sameeyay maamuuska iyo magaca iyo meeqaamka shisheeye aan sito, wuxuuna si xushmad ah igaga waramay sida ay doonayaan in ay Soomaaliya ka yeeshaan. wuxuuna isagoo moodo inuu safka hore ee dagaalka ciidan joogo la hadlayo yiri adduunyadu way ku qaldan tahay in ay Soomaaliya oo aqoonsato dalka madax banaan Itoobiya. wuxuu ii qiray inuu jiro kala fogaansho siyaasadeed oo u dhaxeeya isaga iyo Mingiste, balse wuxuu yiri ma qarsanayo nacaabka aan u qabo Mingiste iyo marin habaabintiisa shacabka Masiixiga ee Itoobiya ee sida maskaxumada isagoo raacinaya wadada shuuciyada inkirsan. Ilaaha nagu abuuray ruuxda sidaan uu inkiraa Rabbigii abuuray oo aan u doortaa nin ruusha oo weli bacad anigoo waxaasi dhan og. haddana waxaan mideeyay colaadda aan u qabno Soomaaliya iyo siday noogu go'an tahay inaan yeelno dhulkaasi baaxadda leh ay ku nool yihiin qoysaska yar ee muslimka ah. 86 habeen kadib ayaan xamar ku soo noqday anigoo malaabaalaya in uu sareeyo guud taliyahaygii ii diray shaqo lagu hubinayo halka uu gaarsiisan yahay iimaankayga kacaanka. waanse ku malaqa saaray aroorere ayaan xafiiska ugu galay. intii aan hadalkayga bilaabin ayuu yiri Jaale, warkaagii waa kaa soo horeeyay. akhri buugga 3aad ee xigta Oktoobar oo uu ka soo saaray meel gaar ah, waxaana ku sawirnaa 2 nin oo islaamaya oo dhex taagan xafiiskii aan ku soo dejiyay khariirada juqraafiyeed adduunka oo aysan nafteedu marnaba helin xalxiraalaha ku duugan. mid waxay ila ahayd caadi, waa xaduud beeneedka ee aan la wadaagno dalalka dariska oo xariiqan go'go'an lagu astaameeyay hoosna ku sharaxan xaduudda lagu murunsan yahay. ereyga lagu murunsan yahay waxaan ka jeclahay xaduud beeneedka, laakiin marnaba ma soo dhigan meesha ay xildheeriyeesha nabad sugidda ee Soomaaliya ka dhaxarkeen danta dalkeenna oo ahayd in Eritrea oo markaasi ka tirsaneyd Itoobiya laga jaro khariirada Itoobiya. taasi ayaana si xoog ah uga caraysiisay xukunkii Mingiste. bilowga 10 sano ee u dambeeyay cimriga kacaanka waxay Soomaaliya gashay xaalad dhaqaale oo ka soo gaaray dagaalkii gobonnimadoonka ee Soomaali galbeed. dhaqaalaha dalka ayaa ciiray. boqortooyada Sacuudiga waxay ahayd meelaha ugu badan ee loo dhoofiyo xoolaha Soomaaliya. waxa suuqaasi nagu cariiriyay Australia oo xoolo fara badan u soo dirtay khaliijka. safaaradda Soomaaliya ee Jidda ayaa waxay soo dirtay warbixin qeexaysay in qasnijihankii Australia John oo markii dambena noqday ra'iisul wasaarihii Australia ee 1996 ilaa 2007 inuu booqasho ku yimid boqortooyada Sacuudiga. John waxa uu sheegay qoyska reer boqor in xoolaha Soomaaliya ay bukaan, sidaas awgeedna wuxuu ku xadxutay in la joojiyo inta laga ogaanayo caafimaad qabka xoolaha Soomaaliya. warbixintaasi waxay ahayd dharbaaxo xanuunkeeda dhaqaale leh oo soo food saartay dhaqaalihii liicayay. maalintii xigtay waxaan ka mid noqday wafdi loo diray
wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudiga fariinta aan siinay kuma qorneen af Carabi, waxay ku qorneed af Ingiriis, waxaana maalinta xafiiska ugu tagnay wasiirkii arrimaha gudaha ee boqortooyada Sacuudiga Naif bin Cabdilcasiis. waxa uu wasiir ahaa 1975 ilaa 2012. sareeyihii wafdiga watay ayaa wuxuu u sheegay fariin afka ahayd oo uu madaxweyne Siyaad nagu soo sagootiyay oo ahayd haddii aad joojisaan xoolaha Soomaaliya iyadoo sabab cad jirin waxaan idinkaga jawaabaynaa marin gacmeedka cadmeed. waxaana sidoo kale maqashiinay inaan soo marnay Baghdad oo si wanaagsanna naloogu soo dhaweeyay. warkaasi ma farxad gelin qoyska reer boqor. hore waxaa u jiray tuhun ah in ay taageero xoog leh siiyaan kooxaha dagaalka hubaysan ka soo qaadayay gudaha Itoobiya, sidoo kalena ay dowladda Soomaaliya siinayeen taageero dhaqaale oo ujeedooyin kala duwan laga lahaa, sida caadada u ah marka uu wafdi ka socdo dowlad Islaam ah ay tagaan Sacuudiga waxaa lagu maamuusaa cumro. hase yeeshee socdaalkaasi ma helin fursadaasi. galabkii xigay ayaan u soo duulnay Xamar annagoo ku joognay handheegadii Soomaaliya. waxaa muuqatay xilligaasi in deeqaha fara badan ee ka imaanayay Kuwait, Qatar, Imaareedka iyo Sacuudiga oo saaxiibo dhow la ah Mareykanka ay salka ku hayeen siyaasadda curyaaminta dhaqaalaha ee Bangiga Adduunka uu ku hayay Soomaaliya. deeqahaasi ayaa curyaamiyey wax soo saarka dalka iyo ku tiirsanaantii dhaqaalaha gudaha. taasina waxay saldhig u noqotay qalalaase dhaqaale oo ku habsaday Jamhuuriyaddii Soomaaliya. ku dagaalanka suuqyada waa dagaal soo jireen ah una dhexeeya danaha dowladaha. laamaha sirdoonka waxay ka qaataan kaalinta ugu adag ugana taabashada adag gubidda, kicinta iyo kadeedka suuqyada, waxaana inta badan loo xisaabiyaa falalka ay maleegaan laamaha sirdoonka marka ay ka dhex arkayaan danaha uu leeyahay dalka ay ilaaliyaan sharafkiisa iyo madax bannaanidiisa.